السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو نقد وناكسنا خيارته شرفت له ما أنت وحايدين وهذا الشيء كي إجا بسي بسنا الفيديو برها بالشدة ده أرداي يا ساك اللي يسود دريا وكسو كعي مركا وحان لا هاي إنا إلى دعوتنا الربي naagti deeqa afra ahayd waa soo dhigatay baangada wadataa saakana waxay leeyahay waxaaba ka baqayaaba qabriga subhanallah yaaba lay aasin shay kala dhahay inaan wax qabri alle iyo qodin ariiqaw maxay dhahday dhulkaas banaanka oo dadka kula horta sanadahan waxay noqdeen inaysa sii dhalanaynin inay tarankii uu yaraaday micnaha dhul badan baa soo baxaya marka dhulalkaas in meedadka lagu kiib gareeyo subhanallah wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo meesha laga caasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo wadan kasta dhulka ka banaan in meydka la dhigo حد كتب حتى في ريسيست بقى وحصلان وحويان ضدك عدد يكتب ضدك سيجبوية يضدك الصوت نارنيا كنت واحد من ضدك سيجبوية إني قاعد تبديه ورنتي أي قاعد يرعتي بالماضي يطرنكي وهذا كتب حتى كوحي كنت عيستان إله وح نعاسو أما نعسترو يانواين ضدنا قبري وكعرر يعني والله معجزة كلواي maxaa laga qaban karaa saanay leedahay xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan maxay dadka isugu tagaano jiidaan dadka meydka anigu waxa soo dhan wallahi hadii aan Soomaali nahay ma aqaano meena ku socono mise waxa soo maleynaa hadda gabadhaas waxay ku leedahay dhakhtarkii igu dambeeyay ayaa yiri waxa ku haysto waa inaad ka baqayso qabriga ugu dambeeyay runtii uu in yajibiyay oo ugu yiri adiga waxa ka baqaysaa qabriga iyo rara here man shit I'm saying dida ama diidida ama yeeshida waxa maqli jiray qof dhii jiray mafado weyli ka fadsiyay wax la dhii jiraa wallahi billahi ta'ala marka waxaan la yaabanahay gabadhan sababta ay qabriga uga baqayso sax qabriga waa ka baqi kartaa qof dhintay waa ka baqi kartaa qolku ku nafbahay hataa aniga hadaa iska soo qabto ma gali karo qof haduu qof ku nafbaxo waa ka baqa laakiin si walba noqoto kullu nafsin daa'iqatul maut Allah qof walba geeru dhadhamina laakiin hadii aad dhahdid qabrigayga waa ka baqaa qabrigaaga hadaa ka baqdid hadii aad ahlu naar tahay ilaahay ahlu naar nagama dhigo amalkaaga lagu qaada hadaa ahlu janno tahay banaanka si la rabo lagu dhigo waa lagu qaada su'aasha ay gabadha rabo markii inaan weydiiyo waxay tahay hadii la dhigo meel ama geed la saaro maxay la kulmaysaa kullay nafteedii ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu qaatay koru geeyay samada la geeyay gari laba nin kama wada qoslisaa la dhahay haddii ay noqoto naf faa'iiday oo la qaatay gabadhaas haddii banaankeeda xataa la dhigo faa'iidadeeda leedahay haddii daarta xun uu ilaahay ma geeyay ilaahay noogama baryaayeen waxay noqonaysaa in lagu qaado ficilkeedii marka Soomaaliyay horta islaamka waa ogtihiin qof naga mid ee maanta hadduu dhinto oo la aasi waayo kulligeena ayaa dambiga iska leh inta muslimiina inta bini aadana yaa dambiga iska leh laakiin wuxuu ilaahay noogu naxariistay dadka qaar markii ay meeshaas joogaan intay isxilqaamaan ee qofkaas aasaan waxay u noqotaa
waxay u noqotaa annaga kaleeto inaan dembi dhaaf. hadda meeqa qofaa dhimatay oo aada qabrigiisa tegin isweydii. ayada waxay ku doodaysaa dadkan intay kasoo boodaan jaqafyada iyo wataan. intaa waxaad arkaysaa waxaase usoo kala ordayo meelkiimadan la aqoona ma jarafidii balaayi. horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaalaan. jaqafyada waxaa la asturayaa waxaan haddii uu sii yaalo wuu fuurayaa wuu bararayaa just like xoolo dhintay camal ama bakti camal aa noqonaysa. markana urkaaga iyo dilaacaaga iyo maxaa la dhahayay ilaahay horta kow waxaa jirto qabrigaas lagu geenaya inay tahay in aa ogaatid in lagaa abuuray ciidii lagaa abuurayna aa u noqonaysid. marka soomaaliyay gabadhaasayta aniga aad iyo aad ayaan zaa'ida ula yaabay. marka waxaan dhaho ama aan ku tilmaamo ma aqaano. kolley ayada haddii ay haddii aan dhaho ninka dhakhtarka ku ah ayaad ficilkiisa raacday oo ah nin aan iimaan lahayn, nin aan islaam ahayn. islaamnimaa sheeganaysaa, diinteedi waa jeclaha leedahay. at the same time warkii waxaa wadaa qofkii gaalka ah uu kusoo siiyey. marka mushriknimo iyo maxaa la dhahay isku meel ma galaan. marka waxaan ku leeyahay walaasheeda qaaliga ah waa kuwaaninayaa. ilaah horta xanuun ha kaa haayo kow, laakiin waxaan aa mar walba baraha bulshada la ordaysid oo mar walba aa la taagan tahay. maalin hore ahayd waxaa raaligelin bixinaysay oo ilaaha cafis bixiyey dadkii ay kaa qaleeyeen. maanta haddana waxaan la ordaysaa miyaada xishoonaynin? xishoodka xaguu kaa aaday? marka aniga kuguma dayanayo, waxaa sheegtayna ma qaadanayo, mana sii qodqodaayo. marka waxaa ku dhihi lahaa ilaahay u soo noqo, ilaahay u toobadkeen. ilaahay ayaa sharaftan ku siiyey, ilaahay ayaa dumarkaa dhigay, ilaahay ayaa sidan kuu galay. maxaa la dhahayay si walboo tahay sidaa u qurux badan tahay u dadaal inaa aakharan u qurux badnaatid. sidanaa u qurux badanahay dhulkanaan ku qurux badanahay, laakiin dhulkan ma raba inaan ka tago. dhashay aan ku qurux badanahan joogo hoostiisa inaan leegelin baan ilaahay ka barya. kana arkay sida quruxda badan dhoobaa laga soo sameeyey. ilaahay dhoobu naga sameeyey. waa ogtihiin aadam aa ugu soo horreeyey nebi aadam calayhi salaam ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu dambeeya. marka waa ogtihiin annaga khaasatan ilaahay haddana wuxuu kusii dhahay laqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim. ilaahay dadku wuxuu ka sameeyey suuradda ugu qurxoon. maxaana looga sameeyey? inaa ilaahay ku mahadino. kow xayawaan ma nihin, bahaahin ma nihin, diinta waa naqaanaa. adigana waxaan ku dhihi lahaa maadaama aad diin yari sheeganayso, diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano. ilaahay diintaada wax kuu tarayso, gacanta midig diintaada ku qabso. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.